وإن أدقرت ربك والله ويا معبودك وإلهي ويا كعبادة متيستي وإلهي ويا كبرية متيستي وإلهي ويا كالرجاء متيستي وإلهي ويا كعبسة متيستي وإلهي ويا كليجي رجاء كليجي كعبصو كليجي بريو بعيدة كليجي وشهو ربك والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكي لعنكم الرقم وحكي لما آمن سني دين بانو نولحي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لعنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعندما يسترتب النبي عليه الصلاة والسلام وين نقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة يقول على سيرة علي بن أبي طالب ننبايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين دول حقا أي جوغان قال دول حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال دا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبوا لك دي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو السنين علي بن أبي طالب ونكا كورفا ديبو قنوف وجيغا لغا طفاي مرقاسو علي قنوفا لغا طفاي وجيغا لغا طفاي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغا طفاي علي وصريا وككعاي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya علي maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qanduufa kugu tufee war marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu lillahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban cidaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan cidaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqoto qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabriga kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaas nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam baa la horkeeni oo la oran doona maxaad u taqaanay shakhsigan markaas uu muuminka ilaahay waa nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam saddexda su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doona an sadaqa abdi adoonkaygi run buu sheegay afrishuhu min aljanna firaas jannada ka soo qaado u gogla walbisuhu min aljanna dar jannada ka soo qaado u xidha waftahu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halka ka daawaday baa la oranayaa dulkaad ku celisay meydka dhulkan ku aasnay minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum halkaad ku aasay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaab al-abraar la fi illiyin jannaduna waa fawqa 7 samaawaat halkaas qofka muuminku jannadiisa ka daawanaya sida inakuba aaladan yar imika aan haysanay mobilka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka uu ka arkaya jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doona iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto an-nawmu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun ba nabigu alayhi salatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waa foofi waa macaash kasbi xalaal ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bixiyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa ku sheegaya la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannuhu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan
ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قل شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونا لأن حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي حي وما حيب لا يا هرددي نقصوكعي وان جيفني وان هردني هردد محان نقصوكعي بولي markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yoom alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla wannahaara آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي آية الليل آية النهار نولشان الدنيا عن كل نولهي وماليني يا هبين مالينتينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد زيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله أيدي نعم الدنيا انت اللي جوجو واحد جوجي سوا مالني هبين قبرك هدي اللي قدقنا وهبين كليا هبين كاسو النبي قنوش يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بيربرها جنة كمدا اللي قدقيا قال كينا waxa looga dhigaya gudgudud kanaarta kamida looga dhigaya nina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurda مالك القيامة صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيدا لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقه قبرك مركي قلان كوكليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسردي الندامي مرق لي أركي مايان وحاد موداب ونبي قول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت اسكهر كفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحان كما هدنا نحدنتي مرقتي أنك النقاقاذي ربي جاي واكيد دافتان كبدنا إيه شكور كها ويان إيه أفعاشا وناكسن أدون كل ما درالك كجن نقضي ويان لأنه يصوب حيان يوم القيامة مالين تسرجوجا ويوم قرآنك يوم بوشيجا هبين مشيجين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين من مغليسد هبين كدودون واكاسي قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنو صندون ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يلي
40 kun oo sano waa la joogi 10 kun oo sanana xisaabta ku dhamaani doonta buu yiri 40 kun oo sano ayaa sida loo taagnaan doonaa 10 kun oo sanana xisaabta ku dhamaan doonta nin Carabi oo reer baadiya ayaa saraka u yiri yaa rasuulallah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu ilaahay baa xisaabi doona rabbiga xisaabi doona marka ninkii Carabiga intuu sii jeestay buu yiri najawna wa rabbil ka'ba ka'bada rabbigeega ayaa ku dhaartay waan badbaadnay buu waan nabad galnay buu marka buu nabigu soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yiri bal ii sheeg wuxuu waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu ma cid baa isaga qabsanaysa buu yiri waa kariim kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك مدى مجرو حتى جرى نبو رسول كل أي حي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالين عد وكل أفعلين يسا مجرته لغة عربية لغة واضح الله يا حاجة مدقتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي قولي تمر جيح تمر إني كانن هلين بو نبي قولي ياي هذا الكون أكسن أكو هذا كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم والخير كعضو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درعة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفوال بباردي سيبا كتا الله دواسدين لقود لي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقية دمر مالنتاس ما ليستحسعون يا أو ليستحسعون يا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نمبا ما قبض با ما نقبا ما بإيجي يا أبو رسول قل هم بقى مجربون هورتي سواحة على النار دي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ما ايغين markaas lagu yiri murugtan badan waa maxay baa lagu yiri ma dadkan waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegayaa al mawtu fi unuqi geeridii baa qoorta ii suran wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyaamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا واجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي يوحي يقول سمعين دوننا كما ورقبي بول أنو انت سو مرحلة نيكا اي سوغا يسو ايساقو هادو قصلي حق قصلي بولي أنو تايدا كورما يا بولي انت نولا هاي وهم بانولو شيدا كودا ما يسن بولي ما انت وأدويو بريتولا وآخر ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محال وضاتا محاوتا عنوكو مانتا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي جنو كورم عليه الصلاة والسلام أيها يا رسول الله مالك سرجوكا أيها وات كي سنكر يبي كتري من يقوى أيها كر يبي كتري كنتم كنو صندو مركابو النبي يقول يا عائشة وفق مؤمنك إيمان كله ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin
salaada faradka intaa tukataan in laag baa banka qiyaama looga dhigi buu yidhi. inteen tukanay salaadii maqrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo. mu'minka iimaanka leh ee adduunyadan intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa. hadalku intuu ka soo bixin qofka mu'minka aakhiraduu eega. dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eega. meeshuu marayo aakhiraduu eegaya. meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa. hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradayda aan ku badbaadaayo. dhaqaalahaan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradayda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay. mu'minku wuu xisaabtamayaa. mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecee ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayey in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa. dadkii ilaahay yaqaanay dharaar iyo habeen aakhirada hortaalla iyaka. aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa? waxaad doonta ku hadli kari maysid, waxaad doonta eegi kari maysid, waxaad doonta cuni kari maysid, sidaad doonta u noolaan kari maysid. waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaantao dhan kaa joojinaya, wanaagoo dhanna kuu diraayo. dareenkaasaa qofka qabanaya. qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaas. dareenkaasi waa iimaan weeyaan. iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee. ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen. nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay, aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay. waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix. waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix.